بدر ديارنا مركا براتك كذا هندا أول ما معناها واحد قصيصة إيكولوجي معناها دراسين سين إيكولوجي إلى واحد كل قيبينه وعلمي برشة الديجان كجودهان معناها animal plants إلى واحد كوبنا وحيابها النول وحيابها النولين marka meesha amaanta joogno qorshe ahaan waxa uu imaanay in aan ku barano plant and animal ecology marka hadda qaybta markaan fiirino marka waxa loo yaqaanaa dadka macna cusub ardayda waxaan ka wada groupka labaad agro ecosystem horaan soo sharxnay sama marka ecosystemyada dhowr nooc aan saaran soo sheegnay qayb ecosystem oo saxara ah waxa loo yaqaanaa desert agro desert ecosystem sama waxaa jira kuwa biyaha kuwa bariga marka intaas uu kala baxay kan marka mid kamid ah waaye maxay ahayd kuwa bariga dhulka macnaha qallan asalkii hore maxay ahaan jirtay meeshan intaan la beerin waxay ahaan jireen Soomaha geedo badan oo kala nooc ah ku yaal hadda waxa lagu beeray macnaha dhowr nooc oo geedaha oo hadda intaan space dheer macnaha waxa ku beeran babaay Soomaa marka meeshaas waxa soo noqon doona agro ecosystem babaayga laakiin importance-giisa horticulture ku qaadan doontiin babaayga وأركي معناها قابكو بيرين لمن كانوا بيرين هاي أصلاً عدان كهذا الله وحابها وترى معك بده إذا كانوا حكوا تقولين سماها معناها إذا هاي لما حمدت كتر مان وحكم بده فلاور أبحي ميل فيميل وكل سماء قيب ندقي قيب أو لبا معناها marka wuxuu u badan yahay marka inta marka la beerayo badankood saddexna calo kala qaybiya geedaha qaar oo bas ubax waxay leeyihiin oo laba kuwan waxay leeyihiin ubax dhadiga kuwan waxa waa isku dhafan yihiin male iyo female iyo hermaphrodite macnaha saas daradeed macnaha hermaphrodite waxa waa ku isku dhafan waay macnaha ubaxi macnaha wuxuu leeyahay ubax oo ka samaysan qaybtii male ka iyo qaybtii female geedkaas isku filan marka wuxuu sameeyaa self pollination si uu soo saaro miraha aad arkaysid fruitska soo saar laakiin male ka kaligiisa male ka macnaha ka male ka ah ma soo saarayo mirahaas ma soo saarayo female kaliya ma soo saarayso male ka marka badana waxa la sameeyaa hadda aragteen waxay la mid yihiin macnaha poultry-ga oo kale gadaal ka qaadan doontiin macnaha digaaga oo kale intaas oo dooro macnaha waxa ku dhex jira Soomaa hal deeq oo kale marka 20 geed oo kale ma ka badan marka la beero waxa lagu beerayaa maxay dhexdooda ama mid oo ubaxi labka kaas hadda waxa qaadaya marka insectska cayaanada waxa kale oo qaadaya maxay ahayd dabeesha qaadaysa kaas waxa loo yaqaan cross pollination sama markii pollen grain-kii uu ka qaado mid kale uu geeyo waxa loo yaqaan cross laakiin kan oo hermaphrodite isku dhafan labadaba dhaxdiisa wuxuu sameeyaa pollination-kii iyo fertilization taasoo miraha soo saaraya self pollination marka babaayga markaan soo koobno aragtay marka uu cayrin yahay haddii miraha la dhaawaco waxa ka soo baxa dheecaan cad dheecaankaas maxaa loo yaqaanaa dheecaan oo protein waa babaayina loo yaqaanaa babaayinkaas marka waxa waaye dheecaan waxa loo isticmaalaa enzyme oo kala ahaan waa macnaha wuxuu dheefshidaa ama jilcinaya hilibka caadiga tenderize hilibka lagu jilciyaa waxyaabo kalena laga soo sameeyaa diraasooyinka qaar waxay cadeynayaan babaayga inuu u fiican yahay dheefshiidka macnaha markii uu qalal ku imaado disorder gastrointestinal disorder markii uu qalal ama tashwiish ku imaado macnaha dheefshiidkii waa loo isticmaalaa maxay ahayd babaayga waxyaabo kale oo chemical kalena macnaha way ku jiraan oo nervous system saameyn ku yeelan karaya laakiin sida caadiga ah macnaha wax kasta oo fruits noqdaan ama vegetables noqdaan macnaha caafimaadka saameyn ay kala yihiin ugu yaraan macnaha waxay leeyihiin isku dheelitirka balance-ga macnaha cuntadii difaaca jirka ku adkaanay marka babaay waa aragtiin waxyaabo badan marka caqabad ku noqon kara babaay ahaan markaan ka hadalno virus ku dhaco oo spots xariijima ama waxyaabo ku sameynaya dhibcooyin caleemihiisa sidoo kale waxa ku dhaca fungi boulder mildew waxyaabahaas dhan in laga manage garay u baahan yihiin marka inta la beerin beerta guud ahaan agro ecosystem marka ku soo noqono agro ecosystem hadda waxa marka beer loo bedelayo macnaha asalkii hore maxay ahayd dhul oo doora Soomaa door markii ay tahay vegetation different plants laga helaya macnaheedu maxay tahay community badan biotic badan oo kala nooca macnaha area laga helaya laakiin marka ugu horeysa dhulka la diyaarinayo cagaf la geliyo cagaf marka la geliyo oo meeshii la baabi'iyo waxa ka baxay immigration ajir Soomaa xayawaanada qaar waa qaxaya markay cuntadooda waayaan qaarna way soo galayaan cunto fiican meesha ku arkaan marka meeshii waxa ka baxaya different plants-ki dhirtii kala duwaneed meesha ka baxday waxa meesha ka baxaya xayawaano badan oo ku nool meesha marka hal nooc marka la beero halkan nooc la beere waxa ku soo haraya kali noocan waxyaabo cunayo oo loo yaqaan pestis aafo
bini aadamka competition la sameynaa waxa competition ku sameynaa cuntadii soo go'ay lahayd waxa jira fruit flies jira taxi fruits ka badan ku dhalaayo ukumihiisa waxaa jira macnaa insect kale caleenta diirinaysa oo kamid yahay locustiga aan yaxi waxaa kamid ah disease cudur saabayaashii bacteria fungi nematodes waxaas dhan dhibaato u keenaya marka kuwaas marka waxa loo bixiyay pestis oo bini aadamka marka wuxuu dajiyay maxay program oo ku management ku sameynaa control oo IPM integrated pest management macnaa different methods marka dhulka marka la diyaarinayo marka ugu horeysa aan ku bilaawno agro ecosystem oo u soo noqon doona faa'iidada ay leedahay waxyaabaha ay leedahay marka waxaan fiirinaynaa land preparation waxa ugu horeeya waxa waaye dumar markii ay geed qaadis lagu sameeyo ila dhulka kala sareeyo Soomaaliya topography ila simo oo macnaha geedihii la jaro kadib in la sameeyo macnaha tillage ila qodo meeshii caradii la qodo dadka waxa adeegsan jireen sida maxay ahayd nooc loo yaqaano maxay ahayd macnaha traditional oo dibiyadii oo kale ama qaar geel adeegsadaan waxyaabaha ku falayaan meesha marka tillage ka qodidaas waxa loo yaqaan marka primary iyo secondary ka leedahay hadda waxay ku xiranta dhulka qaabku adeegyahay qaabka loo diyaarinayo kadib waa la jabinayaa level lagu sameeyaa kadib waa la simayaa kadib waxa loo diyaarinayaa macnaha daleemanka kuwan leemankan waxa loo yaqaan rows marka halkii hektaar 10,000 mitir oo square ah macnaha inta geed ee ku baxaysa macnaha waa soo saari kara population geedka populationkiisa sidoo kale seeds ka dhowlo adeegsanay lagu beer macnaha waxa la og yahay inta line ay tahay beertii iyo halkii line intee u dhaxaysa macnaha labada geed inta 6 mitir u dhaxaynaysa 2 mitir 3 mitir 4 mitir 5 mitir hadda waxa ku xiran tahay geedka noocyada ila geedaha weyn marka la beerayo hadhow cambaha oo kale wuxuu bixinayaa ma faracyo badan u bixinayaa inuu soo gaaro la diidayaa si hadhow cudurrada iyo waxyaabo kale ay isku gaarsiin karin qaarkood pruning lagu sameeyo macnaha waa la jaraa marka haddii aan soo noqono ciida waxa loo kala qaybin jiray Soomaha saddex qaybood clay iyo sand macnaha carrada dhaabada iyo bacaadka carrada kala jilicsan marka carrada badana marka hadda kan analyzing lagu sameeyo macnaha waxay noqonaysaa qoobaha dhabma isku dhafantay marka dhoobaha ku badan laakiin waxa loo yaqaan macnaha loom waa carrada isku dhafan percentage ahaan dhoobadii ku badan saas daraadeed carrada wanaagsan macnaha waxa lagu yaqaan carro aeration leh hawo leh doodooladaas leedahay oo kale hawo leedahay marka hawadaas root systemkii wixii anfacaysa sidoo kale waxay leedahay microorganism maadaama ay ku badan yihiin maxay ahayd organic matterska macnaha wixii nafaqada caleemaha markii ay furfurmaan decomposers ka furfuraya waxay noqonayaan nafaqo ciidda ay noqonayaan macnaha cycle-kii waxa aan soo arki jirnay oo ah nitrogen cycle-kii phosphorus cycle-kii iyo maxay ahayd carbon cycle oo ay atmospheric waxaas laga helay marka ciiddii marka carrada marka la wanaajinayo hadii ay carrada ilaa waxyaabo badan la xiriirsan geedkii waa meesha uu ka bixi lahaa sida rasmiga pH-ta waxay Soomaha acidity inay noqoto 7 wixii ka soo hooseeya wixii 7 ka koreeya 7 neutral waaye 7 marka carrada badana hadda carrada waxa ugu muhiimsan عناصرta ugu muhiimsan saddex ay Soomaha NPK nitrogen phosphor iyo potassium marka qaarkood potassium asagoo dhulka phosphorka asagoo leh waxa laga yaabaa hadii acidity dhulka oo acidity ziyadata inuu geedka xididiisa absorption ay sameyn kareen saas daraadeed carrada neutral laga dhigaa fiican limestone waxyaabo lagu daraa marka limestone kaas macnaha dhagaxan la burburiyo waa carro kala waxay ka dhigayaan carrada neutral ahaan ka dhigayaan marka muhiim marka agro ecosystem wuxuu ka kooban yahay waxyaabihiis ecosystem ka dhan ka koobnaa Soomaa koow qaybtii ciidda dhagaxaantii waxyaabahaas oo dhan laba waxyaabaha biosphere-kii oo dhirtii ay ka mid tahay microorganism-ku ka mid yahay waxa arki doontiin video oo beeraha qaar hadda beerahan organic lama dhaho beeraha organic la dhahay waxa waaye beera aan loo adeegsanaynin sunta beeraha oo aan loo adeegsanaynin fertilizer aan loo adeegsanaynin bas waxa loo adeegsanayaa geedkii wax dabiiciga naturalka ah sida mycorrhiza horan soo aragnay fungi Soomaa mycorrhiza waa soo diyaariyaa xididada geedaha badan ama la siiyaa dhirta geedkii markuu dhameysto wixii nafaqo ah fungigaas u shaqeynaya macnaha wuxuu soo nuugayaa wixii nafaqo area dhan marka geedkii koritaankiisa mirihu soo saari lahaa wixii dhan aad ay u fiicanaysaa marka mycorrhiza application waa fungi oo calaaqada ka dhaxaysa waxa loo yaqaan calaaqo oo ah isdhameystiro Soomaa maxaa loo yaqaan calaaqaas symbiotic relationship calaaqaas marka waa calaaqa isdhameystira badana waa loo adeegsadaa research badan laga sameyn karaa macnaha organic farm loo yaqaan beeraha aan organic farm waxa loo bixiyaa adduunka maxay hadda aragtay cudurrada kansarka ku dhacaya caloosha beerka sanbaba waxa abate oo cunto waxa laga qaadaa badanaa cuntooyinkan oo warshadaha ay soo sameeyeen oo preservation chemical oo 2 sano 3 sano 10 sano xifdinaysa taas daraadeed sunta lagu buufinaa xitaa fertilizer kan saameynaya ku leedahay taas daraadeed marka organic farm beeraha aan waxaas loo adeegsanayn sun pesticides aan loo adeegsanayn fertilizer aan loo adeegsanayn waxyaabaha adduunka waxay ka mid yihiin ugu qaalisan oo ugu muhiimsan oo caafimaad ahaan macnaha recommendation ahaan lagu bixiyo marka land preparation ka asaas loo sameeyaa marka agro ecosystem meelaha qaarkood waxa jira warshado
oo dalagyadii la soo gooyay hore ka sameynaya canning macnaha warshadeynayaan ama gasacdeynayaan ama habeynayaan kuwaas macnaha ayagana space ay u baahan yihiin macnaha meeshii in loo falo oo la baabi'iyo geedihii waxay ka qayb qaadanayaan macnaha industrial farms loo yaqaan ama macnaha beera warshadaha macnaha beeraha ku dhex yaala marka beer markii aan dhahnana waxa soo galaya animalski iyo plants macnaha agriculture marka la fasirayo guud ahaan ilaa waxa animal iyo plants labadaba macnaha complete farm beer dhameystiran marka ciidda haddii aan ka baxno ciidda guud ahaan saas waay macnaha ciiddana waxa waay soil profile jirta sama marka la qodo 2 mitir lakabka ugu sarreeya ugu nafaqa badan lakab ilaa carrada markii hore waxay ka soo sameeyeen soo dhagaxaantii aan soo arkay saddexda nooc oo rocking oo ku dhacay weathering oo burbur ku dhacay physical weathering chemical weathering waxyaabahaas oo dhan marka hadda haddii la fiiriyo beertan babayga ama qaybtan babayga uu ku beeran yahay waxaa arkaysaa specific ama nooc khaas ah oo cayaana ah oo pestis aan u naqaano inay ku nool yihiin waxyaabo badan ay ka tageen kuwaas marka pestis loo yaqaan qofka bini'aadamka soo manage garan lahaa markaas uu ku fikirayaa si ilaan haddii la manage garan waayo control lagu sameeyo maxaa dhacaya wax soo saarkii maxaa ku dhacaya hoos u dhaca decrease ku dhacaysa si marka wax soo saarka kor loogu qaado waxaa la dabaqaa nooc loo yaqaano IPM waxaa laga soo gaabisamaa integrated best management IPM waxaa laga soo gaabiya integrated wax isku dhafan waa bestna waa cayayaankii aafadii dulintii wixii ku dhacay managementna waa controlkii ama measurementii marka taas maxay tahay dhowr nooc jira marka adduunka markii hore waxaa la adeegsan jiray sun kaliya lagu buufin jiray meeshii suntii haddii lagu buufiyo maxaa dhacay cayayaankii wuxuu sameynaya resistance uu adkaysanaya wuxuu dilayaa cayayaankii kusii noolaa ecology waxaan ku soo aragnay somaha natural enemy predator parasites ilaan waxyaabaha isku dheelitiran yihiin haddii uusan lahaan lahayn wax pressure ku hay cadaadis ku hay waxaa imaan lahayd inuu sameeyo outbreak xaddaaf u noqon lahaa marka badanaa kuwaasaa badanaa waa looga faa'iidaystaa macnaha IBM-ta waxaa loo yaqaanaa biological control hadda cayayaan ku dhacay haddii aan aragno maxay ahayd cayaano waxaa jira bedi layers loo yaqaano waxay cunaan avidiska iyo malabisadii iyo white flyga iyo kuwaas ay cunto ahaan u isticmaalaan marka predator waaye kuwaas laabka entomological lab macmalka laabka macnaha lagu soo badin karaa kadib baa beertii la keeni karaa marka taas hore saameyntii kama arkay si sunta haddii lagu buufiilan waxay dilaysaa cayayaankii waxyaabihii hore ka dilaysa maa marka hore kama kuwaan macnaha waxay continuous ay rabaan macnaha muddo dheer kadib waxaa la sameynayaa waxaa jirta marka maxay ahayd oo aan qaadan doono ecology-ga waxaa loo yaqaano insect population dynamic waa qaabkay u shaqaynayaan macnaha populationadii ilaan markii ay ku nool yihiin biotic badan meesha markay ku nool yihiin falgalaa ka wada dhexaysa maa falgalkaas wuxuu noqon karaa calaaqa is dhammaystira calaaqa parasitism mid kale uu kumihiisa ku dhalayo ama uu cunayo calaaqa kale oo predation oo macnaha cunto ahaan uu isticmaalayo marka qaaraa baxay qaaraa soo galay qaar waxaa ku dhacay mortality rate macnaha accident roob badan hadduu duufaan hadday dhacaan shil ahaan u dhimanayaan qaar maxay ahayd birth rate jira macnaha genetical ahaan ama cunto fiican haddii helaan ukumo badan dhalayaan ukumihii macnaha generation kala samaysan populationadii mar waa ziyaadayaan mar hoos ay u dhacayaan waxyaabo badanaa saameynaya factors saameynayaan waxaa climate factor waxyaaba aan nooleen waxyaabaha nool marka food chainskii waa silsiladii cuntada waay marka biotic waxa laga faa'iideysanaya aan soo arkayn ilaan noolayaashii waxaan soo kala qaban somaha primary producer waa sama kan macnaha cunto qoraxda shucaaca qoraxda ama lightka toos wuxuu ugu bedelayaa chemical energy gaas toos waxa ugu tirsan noolayaashii oo dhan herbivores iyo carnivores consumerski marka taasaa laga faa'iideystaa biological control IBM-ta qaybtaasaa laga faa'iideystaa biological control ahaana laga faa'iideysanaa ayagoo parasite-kii waxaa la diraaseynaya macnaha ka soo qaad malabisada badanaa dhirta waa laga helaa waxay ku samaynaysaa macnaha dheecaamay kusoo daadinaysaa meeshii caleentii marka waxa hadda kan wasaqoo kale madow ay yeelanaysaa fungi waxay reebaysaa macnaha photosynthesis oo ah waxyaabihii stomata ka qaadan lahaa wixii o dhan ay xanibaysaa marka respirationkii geedkii wax soo saarkii hoos u dhacay marka ama uu dhimanaya qaarkooda marka taas waa IBM hadda waxaan soo sheegnay chemical oo suntii la adeegsanayo mana fiicina macnaha waa la yareeyaa taas IBM biological control oo laga faa'iideysanayay food chainskii haddaan ka hadleen cultural control maxaa ka mid ah dalagan waxaa jira carrada macnaha soil borne disease jirto fungi nematodes oo ciidda markasta laga helayo waxyaabaha dhibka keenayana badanaa specific waa qaarkood waxay leeyihiin maxay ahayd waxaa waaye polyphagous iyo monophagous kaliya macnaha hal nooc ay ku noolaan karaan oo hadda babay kaliya mid specific oo jira iyo kuwa ku dhacay dalagyada oo dhan marka waxaa la ilaalinayaa crop rotation dalaga marka la jaro harvesting lagu sameeyo badanaa waxaa loo isticmaalaa kuwa seasonalka harvesting marka lagu sameeyo asal lama soo celinayo waxay isku family yihiin lama soo celinayo geedo isku dhow yihiin macnaha genetical ahaan waxaa lagu beerayaa geedo kale taas maxaa loo yaqaanaa crop rotation cultural control ka mid tahay ciidda oo kale badanaa marka la diyaarinayo mulching la sameeyo mulching maxaa waaye waxaa la warayaa caleemaha waaweynka oo kale ciidda lagu warayaa maxay ilaalinaysaa taas
عيدة ماستر كده soil master conservation سميناها معنا عيدة قيان كده سي evaporation أقول عن معنا دولكي عيد سيدا كلا واحد قال لنا ويدس ويد محلو يقانه ecology معنا سوقنا سويد وحلو يقانه هذا كسر بابايا أنتوا كبرنا wax kasta oo meesha ka soo baxo aan lagu talgalin macnaha waxa loo yaqaanaa dir kasta oo waqti aan lagu talgalin iyo time aan lagu talgalin meesha ka soo baxdo aan loo yaqaanaa marka anagu wiir hadda cooska caadiga oo naqaana general marka hadleen laakiin hadda yaanya hadda inta soo baxdo kale ama baradhada inta soo baxdo adii aadan beerin waxay competition la sameynaysaa geedihii kale marka waxa loo yaqaanaa weed control maxaa loo adeegsan karaa weed control waxa waaye mechanical removing in la falo oo yaamba lagu falo ama cagaf la geliyo biological maxaa waaye removing biological ahaan loo adeegsado maxaa waaye inta meesha la beerina xoolo la soo gelinayo xoolaha cunaya ama qaarkood insects ay adeegsadaan macnaha wixii nooc la adeegsada jirta adduunka oo chemical control oo cooska adoon falin chemical ku baabin kareys suntaas maxaa loo yaqaan herbicide sida insecticide cayayaan dilaha u tahay fungicide u tahay kuwan waxaa loo yaqaan herbicides waxa waaye coos dilaha herbicides laakiin dhibaato leedahay waxay dilaysaa waxyaabaha nafaqada lahaa oo ama decomposers ka sameynayay biotigas marka hadda waa aragtiin macnaha atmosphere-ka oo iska nadiifsan yahay warshadaha hadda soo meelahan maxay ahayd wadamada industrial ka Shiinaha oo kale China oo kale hawadooda waxa laga helayaa macnaha air pollution sama hawadii way wasaqaysan tahay macnaha marka kan hadda geedaha qaar koodana air pollution ka dib u keenaa maxay yeelay juhdi badan ay bixinayaan geedaha waxa la sheegaa carbon dioxide ka sokow ay soo nuugayaan waxay soo nuugaan wax kasta oo gas oo hawada ku jira oo sun ah ay soo nuugaan taas daraadeed plantation macnaha in dhir badan la beero meelaha qaar kood deegaanka si uu nadiifiyaan waa lagu taliyaa marka kan waxa waaye meeshaan hadda waxaan ku baranay ama concept fiican aan ka qaadanay agro ecosystem oo aan fiirinayna dhulkii lithosphere-kii caadi dhulka macnaha diyaarintii soil-kii wixii aan nooleen iyo biosphere-ka ee tahay hadda dalagyada meesha ka baxay babaygii ama cambihii ama maxay ahayd mooskii oo kale marka babayga hadda kan waxay badan tahay macnaha seedskiisa oo aragtaa waa soo siman yihiin geedkii asagoo miro fiican soo saare marka mirihiisa marka hadda markaan fiirino dalagyada hadii banaanka laga soo gadanayo waxay yihiin hybrid hal mar haddii beertid haddii babayga cuntid mirihi qalajisid mar labaad beeri karis maca shirkadda waxay u talagashay mar labaad in laga soo gataa hybrid ahaan waa genetical ahaan modification lagu sameeyo marka wax localka in improvement lagu sameeyo oo la sii wanaajiyo tayadooda variety marka la soo saarayo ilaa waxa loo fiirinayo Soomaa kuwa u adkeysanaya maxay ahayd biyaha macnaha variety marka la fiirinayo wax soo saarkooda in la badiyo genetical ahaan laba duruuftaas meesha jirta inay la qabsanayaan oo ah maxay ahayd biyo adii roobka Soomaaliya oo kale roobka ay badanaa yar yihiin allaha roobka labada wabi noo imaanayso wabi irrigation system ka daan fiirnaa labada wabi waxay ka imaadaan Soomaa Jubba iyo Shabeelle Ethiopia dhulka sareeyo ay ka imaanayaan roobka meelaas ka daa anoo keenaya wixii nafaqa ay soo qaadaan badanaa daadadka dhibaatana waa leeyihiin khasaarana faa'iidana waa leeyihiin macnaha dalagyo baxay dhul ay baabinayaan laakiin ciidii nafaqada ay wadeen ciidii waa ku warayaan macnaha marka la fiiriyo scientista oo Suudaan u dhashay Abbas tooka loo yaqaano 4 sano ka shaqeynaya macnaha afgooy oo dhagla ciidda Soomaaliya wuxuu ku sameyn jiray maxay ahayd soil analyzing science cilmi weyn way macnaha la barto department oo 5 sano la barto ama ka badan PhD wax lagu diyaariyo marka wuxuu sheegay Soomaaliya ciideeda adduunka ciidda marka fiirsid waxay markaa qodid qaybtii nafaqada ahayd macnaha way baabaaysa ma laha macnaha waxay raada qodid laakiin Soomaaliya maadaama ay wabiga labada wabi inta u dhaxaysa daadadkii soo dhacay waxaabii ciidda badana macnaha inta soo misira waxa laga yaabaa inay nafaqa tahay inkastoo oo maxay ahayd aeration hadii uu si yaraado microorganism meesha ay ku yaraanayaan wixii decomposers waxay sameeyaan laakiin hadana ciidii nafaqa waa ciidaha adduunka ugu fiican uu sheegay inay tahay saas daraadeed meelaha qaar kood waxa la lahaa Soomaaliya hadii management fiican macnaha maamul fiican waxaan ka wadaa dhanka beeraha ah ama santistayaal iyo khubaro research la sameeyay macnaha Soomaaliya waxa lagu tirin karaa wadamada noqon karaya saddexda wadan ee salada cuntada adduunka noqon karaysa hadii management la sameeyo ilaan water harvesting la sameynayo oo wadamada qaar waxay sameeyaan bacaan macnaha waaweynka ay dhigaan oo macnaha inay godad qadaan biyihii reebtaan marka anaga waa ognahay seasonal waxa jiro river sama wabiyo oo badnaadaan gobolada dhexe ilaa kor waqooyi toogaas badan meel ku shubaan badda qaar ku shubaan qaar meel biyahaas dhan hadii harvesting uu sameeyo waxa loo isticmaali karaa irrigation badan ilaan kali dalagyada kama baxaan dhoobeyda kaliya dalagyo waxa ka bixi kara carrada isku dhafan carrada bacaad xigeenka ah dalagyo ku bixi kara jiro oo wax soo saar ahaan loo adeegsan karaa macna carbohydrates iyo proteins iyo marka kan waa hadafkeena ugu weyn irrigation system-ka dhowr nooc loo kala qaado hadda irrigation-ka beertan isticmaalayso waxa waaye kanaaladii laga soo jiiday wabiga Soomaa wabiga kanaalada main kanaal jira kanaal weyn kanaala ka farcamay lambaray kala leeyahay marka oo beertii system ahaan ay soo galayaan laakiin systemyo kala jira oo adduunka la isticmaalo hadii macnaha research la sameynayo drip irrigation oo biyahan maxay ahayd bay qaaminaya waxa way tubooyin yar macna ceel oo kale ama meel laga soo qaaday deena ma jirta marka
biyihii waxay siinayaan xiidadii ka siinayaan dhibicyo dulaal ku aadan tubada ku kala saas oo kale tubadii way xirtaa marka biyo ku filan bas ay qaadanayaan geedkii macna biyo badan ma khasaarayo waxa loo yaqaan drip irrigation kala jiro oo macnaha moolada oo kala oo rusheynaya si roobkii oo kala waxa loo yaqaan sprinklers macnaha moolooyinkaas macnaha wareegaya ayagana waxay sameeyaan irrigation noocaas irrigationada marka way badan yihiin marka systemkan hadda waxa waa systemka grafting macnaha dhulka kala sareyntiisa oo la soo qaadayo maxay kanaaladii qaarkood waxa la sameyn karaa waa aragtay hadda kanaal marka ka baxay meeshaas oo kale tubooyin waaweyn oo jiro size-kooda aad u kala weyn oo caaga oo la gelinayo kanaaladii biyihii ay marayaan marka hadda xoogga waxaan saaraynay ecology ahaan oo saaraynay qaybo kala jiro macnaha horticulture qoseeyo oo fruitiska horticulture kale waxa loo kala qaybinaa soo vegetables qudaarti fruitiski iyo floriculture macnaha ubaxii waxyaabihi oo dhan kan concept yar aan ka qaadanay marka ecology qaybtiis biosphere ka noqoto lithosphere ka noqdo atmosphere ka oo jeedna macnaha nitrogen fixation oo soo aragnay hadda digir oo kale mararka qaarkood waxa jirta intercropping wax loo yaqaan intercropping maxay noqon kartaa meeshaan oo beeraha space kan laga faa'iideysana dalag waxa lagu beerayaa maxay ahayd digir oo kale digirtiin waxay u tahay nitrogen fixation ay u sameynaysaa ma nitrogen ka marka maxay ahayd waxaan soo aragnay nitrogen fixation waxyaabo badan ka qayb qaadanay oo ah microorganism bacteria sameeyay ammonia tii bedelaysay waxay bedelaysaa NO2 NO3 qaarkood hadda waxa lagu sameeyaa denitrification macna nitrogen ka waxa hadafku waxa waa si uga faa'iideysan lahaa xiidadii ay soo nuugi lahayn taas ayadoo loo sameeyay haddana mycorrhiza haddii loogu sii daro wuxuu u sahlayaa areadan haddii xiidada areas haddii ka dhamaato macnaha fungi wuxuu sameynayaa meel dheer inuu ka soo qaadi karo maxay ahayd nutrients asaga muxuu helayaa symbiotic hore u soo sheegnay fungi wuxuu helayaa samaha boilamkii cuntadii wad caleenta ilaa waxay sameeyso waxay maraysaa samaha xiido ama tubes ay maraysaa loo yaqaan boilamkaas marka uu ka faa'iideysanaya asagana xiidadii meeshaas ka nuugaa marka jawigan oo kulul yahay wixii su'aal oo ku saabsan qaybihi hadda sharaxaad ahaan ka soo qaadan ama comments ama waxa ku daraya macluumaad waxaan soo aragnay hadda ecology ahaan oo diraasaynayna gaar ahaan plant ecology iyo animal ecology labadaba soo galayaan microorganismkii dhirtii aan ka soo hadalnay dhulka la diyaarinayo noocan systemkan waxa loo yaqaano oo ah agro ecosystem waxyaabahaas oo dhan macnaha oo mid kastaba macnaha waxaa ka dhaxaysa hore waxaan soo aragnay sama triangle marka dhisiiskan ka hadeen oo ah hostiga pathogenki iyo environmentki waxa waay macnaha atmosphere-ki wixii marka waa saameynaya mid kasta mid ku saameynaya geedka hadda cudurro bacteria iyo fungi ku noolaan lahaa mar waxa noqoto resistance uu yeelanayo oo adkeysanaya iyo mar uu susceptible noqonayo cuntadiisa haday ku yaraadaan wixii susceptible waa sida bini'aadamka kale uu nuglaanayo wixii haddii cunto fiican iyo nafaqo fiican iyo wixii qaato manage macooski resistance uu noqonayo marka inkastoo adkeysiga ay ku xirnaan karto genetical ahaan mararka qaarkood macnaha waxyaalo asal waxa jirta balant cudurrada marka laga hadlayo controlka disease-ka geedaha ku dhaca badanaa waxaa la adeegsadaa macnaha variety noocyo oo leh resistance u adkeysanaya cudur sababayaasha u adkeysanaya pathogen marka wixii hadda aan ka hadlayno waxaa soo koobaya triangle-ka saddex geesoodka oo ah qaybta saddex geesood markii aan sawirno qayb waxay noo noqonaysaa hostigii macnaha wixii lagu kornoolaa ama noqdaan dhirtii ama waxyaabo kale qaybna waxay noqonaysaa maxay pathogenkii oo parasite-kii wixii noqonayo qaybna waxay noqonaysaa environment-kii saddexdooda is saameynaya marka midba mid kale saameynaya environment see loo saameynaya waxa nool environment waa aragnaa hadda macnaheed waxyaabaha predator ama parasite kuwan way saameynayaan qaar ama decomposers wixii burburinayaan decaying substance wax kale u bedelaya laakiin environment see loo saameynaya geedku wuxuu soo saaraya samaha carbon dioxide waa nuugaya oxygen badan uu ku daraya samaha waxyaaba badan nitrogen fixation-kii la sameynayo macnaha bacteria saameynaysa waxay soo dejinaysaa nitrogen-kii oo macnaha qaab kale bedelaysa denitrifying nitrogen asoo gas ahaan N2 hawada lagu daraya marka taas waxay saameynayaan marka maxay ahayd waxay isku saameynayaan nitrogen-kii 70 iyo 8 hawadii balance-ga macnaha taas waxa waa cycle-kii wixii oo dhan qaybo badan iska saameynaya marka haddii macnaha cilmiga sidiisa macnaha waxa waa research la sameeyay oo isku tagay macnaha oo koorsa noqday hadday tahay ecology hadday genetic tahay haddii ay tahay horticulture haddii tahay waxaas dhan research badan oo la sameeyay oo qoraal markii dambe laga sameeyay oo qaab isku xiga loo sameeyay marka science-kan weligiis waa soconaya research-ka waa soconaya hore waxaan soo aragnay samaha dhirta xitaa dhexdooda inay sameeyaan communication samaha macnaha haddii biyaha ku yaraadaan oo kale haddii disease ku dhaco kale leen waxaa jirta hertz-ka macnaha bini'aadamka codkiisa waxyaaba uusan maqlaynin oo meelaha qaarkood clicking macnaha waxyaala click oo kale ama cod saas oo kale soo saaraan allah markii biyaha ay ku yaraadaan geedka stress ku dhacaya علانتي واسكو سو سمح له يقرب صوماليان ويلتينج عندر ama درب ama candarki ma micnaha terminology waa kala duwan kara marka waxyaabahaas oo dhan way jiraan marka
oo communication ka dhaxeynaya community ilaan ecosystem ku wuxuu community iyo physical sama physical kan ciidan waxaabahan anoo matalay dhagaxaantii waxa soo dhan marka waxaan isku dayi doonaa lagjarada soo socdo oo xoog saari doonaa hadii aan helno macnaha waxyaabaha oo mycorrhiza waxyaabaha dhiirigelinaya in laabka lagu diyaarin karo hadhow hadii laabka lagu diyaarin karo macnaheedu waxay tahay dhir badan waa laga maarmayaa in fertilizeradan chemicalka loo adeegsado mycorrhiza la siinayaa geedkii iskiisa u baxa mycorrhiza ilaa wuxuu ku jiraa xididada ilaa geedka wuxuu qaybsanayaa Soomaa shoot system ciidda ka sarreeya iyo root systemka marka wuxuu kala qaybsanayaa Soomaa secondary rootski iyo root haireski marka mycorrhiza laba nooc waa mid wuxuu ku nool yahay oogada sare xididada midna wuxuu ku nool yahay qaybta gudaha galaya cortex epidermiska maxaa ku xigay exoderm iyo endoderm laga helaya marka meeshaas wuxuu u sameeyaa quality of absorption of water iyo mineralski wixii uu sahlaya marka mycorrhiza hadii researchada Soomaaliya laga sameeyo la sii dhiirigeliyo waxa imaanayso waxyaabo badan in ay maxay ahayd quality tayo iyo tira ay kala tahay quantity iyo quality markaan dhahayn macna waxa waaye markii babaygaas la jaro oo la ogaado maxay ahayd chemical contentskiisa wixii qadii la dhoofin karo suuq market international market la geyn karo quantity maxaa waaye waa tiradii macnaha inta tan marka la miisaamo halkii hektaar meeqa tan u soo saari kara taasa marka waxa loo yaqaan marka quantity wixii ay noqonaysaa marka hadda ubax hadaan fiirino kan waa aragtaa hadda maxay ahayd ubaxiisa wuxuu u egyahay hermaphrodite macnaha male structure iyo female structure laga helayo badan tahay dhaxdiisa marka wuxuu sameeyaa fertilization pollination waxa loo yaqaan Soomaa pollen grain markuu la xiriiro qaybta female pollen wuxuu soo saarayaa tuba dheer tube germination wuxuu dhaafinayaa maxay ahayd nucleuskiisa wixiisa wuxuu u geynayaa ovumki meeshaas waxa ka sameysmay marka zygote embryogi markaas waxa sameysmay mirihiya sameysmay marka hadda miraha ma aragtaan kuwan hoose waa dhaleen already waxay ahayn flower ay ahayn asalkii hore flowerkii oo macnaha fruits ku bedelay markay bislaadaan cuntaana loo isticmaalayaa qaabkaas waxyaabo badan adduunka laga isticmaalaa macnaha researchada waxyaabo badan lagu sameeyaa marka intercropping kaas ugu muhiimsan marka hadii digir lagu beero ama dalagyo kale faa'iidana laga helayaa ciidiina waxay u tahay stresski macnaha mineralski waxaabihii dheefkii ay u sahlayaan marka haday jiraan su'aalo maxaa imaan doona maxay ahayd laba group isku qaybinaynaa group oo ku saabsan maxay ahayd qaybta macnaha presentation ahaan group waxay soo diyaarin doonaan macnaha nutritional ahaan nafaqa ahaan babayga maxay ahayd healthiga caafimaadka muxuu ku tarayaa marka laga fiiriyo nafaqa ahaan iyo meelaha qaarkood waxa arkaysaa researchada qaar inay sheegayaan macnaha nervous systemka inuu chemical laga helayo inuu saameyn ku yeelan karo central nervous systemka oo lafdhabartii wax maraya laakiin sida kale faa'iidooyin uu leeyahay caloosha disorder ku dhacay dheefshiidka dadku ka hadlaysan yahay oo kale ama qaarkood wuxuu sheegay macnaha parasiteyada caloosha digestive systemka saameynaya in uu faa'iido u leeyahay environmentigii faa'iido u leeyahay marka groupkaas waxay soo diyaarin doonaan how magaciisa waxa loo yaqaanaa common namekiisa papaya meelaha qaarkooda bow macna bow meesha qaarkoodana w ka maqan papaw way noqonaysaa marka saddexaas common name waa magaciisa marka loo fiiriyo marka groupka waxay soo fiirinayaan classificationkiisa scientific classification waxyaabaha u taraya caafimaad ahaan bini'aadanka environmentiga guud ahaan groupkaas gadaal ka caddeyn doona magacadooda group kalena waxay soo fiirin doonaan mycorrhiza say improvement uu sameyn karaa macnaha mycorrhiza noocyuu kala baxay waxaasay ka hadlayaan classificationkiisa qaabka geedaha ula reaction ula sameynayo symbiotic relationship iyo qaababka wax soo saarka organic farming waxa loo yaqaanaa dhirta aan loo adeegsanin wax chemical ah dhan oo natural ah mycorrhiza loo adeegsan karaa macnaha isla biological ah Soomaa waxyaabo oo calaaqo leh way jiraan ana videoyi waxaan siin doonaa labadaas group ka soo qaybina qayb mycorrhiza waxa ka saar doonaan qaybna papaya production iyo environmentiga saameynta ku leeyahay iyo healthiga caafimaadka bini'aadanka saameynta ku leeyahay labadaas nodes laba qof kala qorto marka qaybtaas marka waxaan u kala qaadan doonaa hadhow maxay ahayd articles aan ka qoraysiin ama presentation aan ka sameyn doonaa macna soo jeedin oo discussion laga sameyn doono marka wixii su'aal ama comments wixii ku daraya macluumaad haayo oo agro ecosystem waxyaabo soo akhriyo waxyaabo soo diyaariyay waxaan noo sheegtay in la diyaari karo kan sida isoo kale waxaas ma laga diyaarinaa wax oo bacteria laga diyaariyo jiro khaas ugu mycorrhiza asaga waxa asalkiisu macnaha waxa muhiim ah in aad diyaarisid meesha ku dhalan lahaa oo kori lahaa media loo yaqaan media iyo asaga meesha laga helay asaga ina soo qaado asaga waxa laga helaa badanaa geedaha waaweyn xididooda
quraca oo kale geedaha perennialka macnaha cimrigooda uu dheer yahay oo 3 sano wax ka badan geedahaas xididooda badanaa waa laga helaa carrada ku jirta soo qaadanaysa waxyaaba ku jira taas waxa waaye mycorrhizae oo soo diyaarsatay oo asaga oo natural ah waxa rabtaa inaad badisid macnaha inuu jiro in kale inaad hubisid waxa loo diyaarinayaa badanaa dhowr qaabad loo diyaariyaa meelaha qaarkood waxay jilciyaan caws oo decompose wax loo yaqaano compost maxaa waaye cawska la qalajina waxyaaba la isku darayaa wala fertilizer ahaan macnaha dhulka lagu duugaya wala khabiirnaa muddo kadib decomposerski wixii marka organic matter soo xasama qaarkood waxay soo qaadanayaan macnaha baalkii arki jirnay seeds noocyo kamid ah maxay ahayd oo carbohydrates ku badan yahay lagu la qasaya biyo lagu la shubaya marka mycorrhizae la soo diyaariyay abud ahaan loogu shubaa meesha lagu daraya asagoo macnaha ciid laga soo qaado hadhow muddo kadib oo khamiir biyo lagu rusheynaya wala daboolaya waxa soo baxaya fungi waxa lagu yaqaan waxa ka sameeyay hive iyo mycelium iyo waxa marka kuwaas soo baxaya iyagoo cad ama qaabkaas oo kale la hadhow marka asagii meesha spores uu sameeyay waxyaabihii kadib waxa application ku sameyn kartaa beertaada irrigation asaa qaadanaya marka irrigationkii biyihii ciidadii u raadsanaya marka mycorrhiza application laga yaqaan marka la fulinayo mycorrhiza preparation part 1 part 2 part 3 ajirta video ah kaas aan siin doonaa markaas group soo diyaarin doono qaybtaas ka faa'iideysan doona wax kale su'aal wax su'aal ku saabsan hadda kuwan maxaa ku dhici doona caleemahan meeshaan ku arkayna dhulka وبربران سما فنجاي ما حجر معناها عيانة وقدنا وحي هو كلا كسير أو بكتيريا فنجاي وحي مركي هدي نيتروجين كولا فرفرايا إلى برانت سلم حكس بسنا كربون دايوكسيد بكتيريا وحي مركي فرفرمان قايب نتاك فايسنسا قايب وحي اسكو بدل كران محيه شدال نوع كران مدلر كدب بدها سيديمنتيس قارنا يوحنا اسكو بدل كران فوسفور كي وحي يوحانتي اركين وكله حبيت marka ha energy marka waxa aan ku dari lahayn energy flow waa maxay marka laga hadlayo food genesis kan waxa cunaya samaha herbivoruski geedkii caleentii waxay diyaariso cuntahan u isticmaal asaga cuntahan u isticmaalayo carnivore sama kuwa kale waxa jira secondary consumer sama oo kasi shabeelkii libaaxi oo kale marka energy-gii aslan qoraxda ahayd ee chemical loo bedelay flow wuxuu dhaxmaraya noolayaashii taas waxa loo yaqaan energy flow macnaha qaar waxay noqonayaan decomposer shidaal isku bedelaya hadhow qaar dhuxul isku bedelaya qaar waxyaabo kale energy kale isku bedelaya qaar heat ahaan u baxay marka energy flow qaabkaas loo yaqaan energy-gii uu soconaya marka hadda waa aragtid samaha maxay ahayd meelaha qaarkooda saddex geesoodka barmuda yaa maqle saddex geesoodka barmuda ma la yaqaan diyaaradaha iyo waxyaabaha ay ku soo degaan ay qabsadaan meelahaas marka tafsiiro badan oo scientist la geliya macnaha qaar waxay dhahaan in maxay ahayd carshi u tahay macnaha ibliis oo wixii boqortooyadiis meesha ay tahay dadka qaarkood waxay sheegaan macnaha in maxay ahayd dhulka balancegiisa dhulka meel dulasho inay leedahay oo energy qaarkood macnaha ama magnetka dhulka macnaha waxyaalo isku dheelitiray in meeshaas ay marayso waxyaabo ay soo jiidanayaan marka interpretation macnaha sharaxaadyo waxa jira oo maxay interpretation badan waxa jira maxay ahayd oo bixinayo marka waxyaabahaas qaarkood waxaa la xiriirin karaa maxay ahayd energy flowga waxyaaba la xiriira oo maxay ahayd ay ka mid yihiin maxay ahayd dhulkaas meeshaas duleesho oo qaarkooda ilaa iyo atmosphere-ka ilaa kor macnaha isku xiriirinaya marka science-ka sidiisa macnaha qayb meel uu calaaqo kala yeelanaya ama isku xiran yihiin cycle-ada waan soo aragnay nitrogen cycle phosphor cycle carbon dioxide cycle cycle kala diraasayn doon cycle-ada qaar haddii la weyn lahaa maxaa dhici lahaa waxaan ma jirnay samaha caleentii daadan lahayd nitrogen hadii waa phosphorkii caleentii dadkii oo dhan noolayaasha dhan ku tirsan si toos ah iyo si dadban directly indirectly labadaba ku tirsan yihiin marka ecology-ga macnaha hadii bini aadamka sidii ugu fiican uu manage gareeyo wax dhibaato kuma imaanayo quraankan lagu sheegay dahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasudi industry kan sameeynaayo warshadahan in wadan kasta economic ahaan ku socotamaya China ha noqoto Mareykanka noqdaan markasta shir waxa la qabtaa global laga hadlayo macnaha global warming waxa sababa carbon dioxide waxa madow Soomaa heatkii soo jiidanaya waxa baaba'ay macnaha ozone layer oo aan ka soo atmosphere-ka markii aan kala qaybinayn marka waxaas dhan waxay sababayaan macnaha ultraviolet-ka dhulku soo dhacay macnaha shucaaci marka way saameynayaan taas hadhow waxay toos saameynaysaa food security-ga cuntadii soo go'i lahayd beerta ay saameyn weyn ku yeelanaysaa marka kuwaas oo dhan marka waxaa laga maarmaan ah macnaha bini aadankii in uu wixiisa balance garaysto haddii si natural wixii si dabiici ku socdaan waxay noqonaysaa wax kastaba inkastoo macnaha bini aadanka marka qaarkood uu taxaamay macnaha cuntadiisa in abaar ku dhacdo in aysan waxyaabo badan saameyn karaa marka diin ahaan loo noqday markasta marka waxa any question kale mycorrhiza macnaha su'aal fiican ay ahayd research fiican oo la soo qori doona macnaha
waxyaalo PhD laga sii diyaarin karo master ama hadhow haddii qalin jabisiin oo organic waxaa loo yaqaanaa farming inkastoo lab iyo waxaasna u baahanayso macnaha microscope oo tayadooda sareyso electric noqdo ama scanner noqdo si detailski lagu arki karo high bihii qaabka u tarmaayo spores ku sameynayo waxaas wax kale su'aalo ku saabsan sharaxaadaan aan qaadanay معناها ساينس كثير سماه حفظ اسمها معناها كونسبت وفهمكي وحي قابك اسكو حرماين دايناميك قابك وشقيناي قيبها صودن نقونسا قيبها كلا دام فيرنو معناها كانوا waxaan ku aragnay babaaygi cambihi jira cambihi oo kale calaamadaha badana qaar ka soo muuqan karo jiraan disease waxyaabo laakiin waxa la isku qalin karaa non parasitic disease jira waxyaabo oo ah mineralska dad ku yaraado deficiency dad ku dhaco هذا جيت كعلنتي صغار وحين قلنا زنك أدوك يرادو نيتروجين أدوك يرادو فوسفور أدوك يرادو علامات صار تاس مركب بلانت ديسيسي سويل كي واحد سويته دونتين لكن جودهان بيرت الدرجة بدنا كوياله وحكم إذا بابايا أنا أركينه بابايا مانجو أكم إذا عم به ماسك أكم إذا صار دافنه ماسك واحد لبيره محيط هاي بتوصل سلك برونيجا بدنا نروح على سوق قوة جبا معنا عفمات غبا لكن asaga waxa ku dhaca badana waxa weyn oo nematooda soo yaqaan nematooda oo galaya wuxuu sameeynaya maxay ahayd fruitski wixii uu saameyn ku yeelanaya gallis wax loo yaqaan oo sidii buradii oo kala meel soo kuusanaysa uu sameeynaya marka wixii comment waa idin furantay oo soo galaya macnaha comment ku daraya macluumaad haya waa furantay wax comment si ku daraya gabdhaha wiilasha anfaca si fiican u isticmaalay comment isku dara macnaha wixii ecology soo qaateen si hadhow macnaha macluumaadkaas dad kala badan ay ka faa'iideysan karaan wixii comment soo qoran yihiin oo hadda meeshaan isku mid maaha cawskaas waa aragtiin waxaa laga helayaa haddii aad fiirisid community ku nool aad u barantay maxaa yeelay dhir kala nooca ku taal cawska ku yaala geedo kala badan oo herbis ku yaala marka dhir kala nooc aad u tiro badan microorganism tiro badan laga helayo ciidi waxyaabahaas oo dhan meeshaan ka duwantay marka meeshaan waxa way hal nooc specific oo ku noolaan kara kaliya babaayg laga helayo marka waa furan yihiin wixii comments ku daraayo waa idin furantay macnaha participate waa ka qayb qaadan kartiin comments hal qof laba qof saddex qof ay wixii ecology ku soo qaateen bas sharxaysiin ku saabsan ama dheeri macluumaad سؤال معناها وكلا قد قيبينيس أب depends on the existence of producers waxay ku tiirsan macnaha jiritaanka producerska to requirement to food chains macnaha qaabkaas macnaha ugu tiirsan macnaha asal ya original waxa samaha dhirtii marka badana hadda caleemaha xitaa marka la fiirinayo macnaha qaybaha hoose iyo qaybaha kore yarda caleenta marka la fiiriyo qaybaha hoose ilaa already wixii soo baxay geedka markii la beero uu soo baxo seedling uu sameeyo caleemaha kore waa caleemaha daada yar caleemaha marka processkaas kulligood way sameynayaan cuntadooda waxay sameynayaan marka la isku xiraayo producers waxa ah marka aan ka hadlayno dhirta terrestrial hadda dhirtaan oo ah waxay qaabka producers maxaa loo bixiyay cuntadooda ayaga sameysanayo waxa loo yaqaan magac kale loo yaqaan maxay ahayd autotrophic anaga kamid ah animals kale ayaga cuntadooda raadsanay marka autotrophicaas waxa ay ku tirsan yihiin ugu weyn waxa waaye qoraxda macnaha energy ka imaanay waxa kale oo u dheer caleenta waxay leedahay duleelo aad u yar oo stomataas waxay ka qaadanayaan carbon dioxide ki biyihii mineralski ay soo qaateen intaas saddexaas markay isla helaan chemical dhacay marka light reaction loo yaqaan chemicalkaas dhacaya waxa biyihii waxay sameynayaan splitting waxay jabinayaan لايتها وحو جبينايا بيه هيدروجين بيام حساسيين H2O سما هيدروجين كي وحا دبرك اسكو هاي maxay ahayd oxygen kii kala furaya carbon dioxide kii waxa jira enzyme oo laga helayo caleenta gudaheeda chlorophyll ka stroma loo yaqaan enzyme kaas wuxuu reduction ku sameeynaya carbon dioxide kii process kaas marka waxa imaanaysa hydrogen kii la saaray iyo carbon dioxide kii in meeshaas ay ka samaysto monosaccharide glucose kii marka waxa ku tiirsan herbivores waxa kamid ah cawski maxay calandaaqda oo dhan waxa calandaaqda waxa kamid ah lo'da geela ariga gariga wild animals ka dayradii garigi maroodigi kuwaas dhan way cunayaan kuwaas ayagana waxa sii cunaya hadhow carnivores libaax energy flow meesha ka soo baxaya waxa ka soo baxaya maxay ahayd
kuwa directly si tooska ugu xirnaa waxa herbivores qaar waxa jiro omnivores loo yaqaan sama bilaadanka qudaartii anaga cunayna xoolihiina hilibka cunayna marka labadiiba macnaha uu noqon karaa marka kuwa more development waa sidaas oo kale hadda bariga waa meeshan biyaha marka la tago aquatic marka la tago macnaha fresh water iyo salty water marka la fiiriyo saas oo kale meeshaas waxa jira dhir oo gudaha laga helayo biyaha salkooda iyo kuwa laga helayo maxay ahayd biyaha sabeynay iyo microorganism cunto samaysan karo muxuu ahaa kaas fungi algaga chlorophyll uu leeyahay sama algaga ilan kuwa samayn kara marka cuntadooda marka ayaga samaysanaya saas ay silsiladii marka ay isku xiran yihiin marka energy flowga waxa ka imaanaya primary producer secondary consumer iyo primary consumer oo ka toos ugu tiirsanaa herbivores secondary consumer waa carnivores ku sii tiirsanaa ayaga more difference marka silsilada marka yartay food waxa loo yaqaan chain sama markii ay badnaatana food shabaka loo yaqaan shabaka cankabuud oo kala ma carcarada si ay u samayso marka nooleyaasha qaar maxay ahayd saasay marka isku xiriirsan yihiin waxa laga yaabaa hadda carcarada cankabuudkan ka hadin laftirkeed beertan inay saameyso indirect maxaa yeelay qaarkood waxa waaye predator waxay sii cunayaan maxay ahayd kuwa caleenta daaqay cayaan kale ay sii cunayaan ha inkastoo carcarada quraanka lagu sheegay samaa waxa la dhahay bayt al-ankabut in awhan al-buyut ila bayt al-ankabut sababta la dhahaa maxay dadku waxay fiiriyaan ma hor xubkaas yariiska kaliya laakiin quraanka maxay ahayd kun aayadood ka badanaysan science ka hadla macnaha oo waxyaabo la gaaray waxyaabo la gaaray marka badanaa waxa lagu sheegaa waxa jirta carcaray loo yaqaano black widow guriga muxuu ka samaysan sidiisa macnawiyan sida caadiga hooyo iyo aba sama female iyo male marka carcaraas waxa lagu yaqaanaa assassination ay samaysaa macnaha habeenkii arooska macnaha markii ay kulmaan male iyo female ay spermiski wixii qaadato waxay dilaysaa badanaa male-kii dilaysaa si assassination macii waxa leedahay sunna way dilaysaa sidaas daraadeeda waxa soo haraya macna single mother kaliya soo haraysa marka sidaas daraadeeda waxa loo dhahay in awhana buyuti baytul ankabut maca daraasooyinka sheegay macnaha oo maxay ahayd science-ka ah sidaas daraadeeda marka bini aadanka xitaa dad lagu dabaqo Yurub markii loo qaxay maxaa dhacay waa la dhiirigeliyaa samaha qoyska kale single mother markay yihiin ilmaha lacag dheer yaa la siinaya saas oo kale dhow waxyaabo badan ka soo bixi kara ilmihii macnaha inuu dhalin ragmi karo laakiin science marka uu soo noqono marka carcaradii indirectly macnaha marka la daraasaynayo entomology cayayaanka ama waxa loo yaqaan arthropoda waxa loo yaqaan arachnida lagu daraaseeyo carcarada ticks mite xoolaha ku arki doontiin macnaha tickska shilinta ku dhacdo xoolaha oo cudurro qaar u gudbin kartay waxaas miteski kuwaas marka kuwaas oo dhan macnaha indirectly ay ugu tiirsan yihiin qaarkood macnaha ay waxay noqon karaan predators ama herbivoreski ay sii saameyn karaan marka taas waxay ahayd commentiski macnaha waxyaabo dheeri ku dareynay wax kale su'aalo kale ay نعيمة أو نعيم wax comment isku dar macnaha labadii wixii ku sidar see loo faa'iideysan karaa education ahaan education ka baxad waa macnaha waa isku xiran yahay sama qof waxa wax baran kara cuntadiisa hadii cunto as food security daahaysid cunto ku soo go'ayso macnaha qaraarkaaga qaadan kartaa sama hadii kale manhajkaaga hadhow maxaa la fargin lahaa waxa laga saaraa waxaas dhan laga saaraa leeysaan sa wixii macnaha bulshada dhisi lahaa ilaa curriculumka wuxuu sameeyaa markasta samaha qofka shakhsiyadiisa nursery ka soo bilaw ilaa iyo secondary ilaa iyo jaamacad ilaa iyo macnaha PhD laga gaaro qofka manhajkaas waxaa loogu talagalay qof si uu eega la soo saari lahaa macnaha qof oo wadankiisa u fikiraayo wadani ah oo cilmi badan xambaarsan research sameynaya oo wax soo saarkii wadanka ka qayb qaadanaya macnaha haday ahaan lahayd xoolo ahaan haday ahaan lahayd beer ahaan haday noqon lahayd iyo science-ka noocyadiisa kala duwan oo dhan laakiin haddii aad cuntadaada samaysan karin oo cuntada dadka sugaysid maxaa qaraarkaaga adii malid sama wixii raba macnaha manhajta dad wala bedela meelaha qaarkood macnaha waxa laga saaraa waxyaabaha dhaqanka iyo diinta iyo waxyaabahaas marka way saameynayaan kulli marka la fiiriyo macnaha wax isku xiran waaye saas ay noqonaysaa marka any question marka hadda waa fahmina samaha ecology componentskiisa maxaa ka mid ahaa waxyaabaha nool iyo waxyaabaha nool meeqa kala baxayeen saddex plant animal iyo microorganism guud ahaan microorganism ka qaarna dhirtii ay ku nool yihiin qaar decomposers oo saprophytes loo yaqaan parasite iyo host calaaqa ka dhaxaysa ma symbiotic noqoto commensal waxa la dhahaa parasite markuu qaadanayo maxay ahayd faa'iidada one is beneficial iyo wabadihii marka calaaqooyinka ka dhaxaynaya parasitism ajir damage markuu gaarsiinayo waxaas oo dhan marka labadaas assignment aan kala qaadanay
assignment oo ku saabsanaa babayga hay caafimaadkiisa iyo assignment oo mycorrhiza ku saabsan marka dhow iska qaymin doona magacyada marka meeshaas aan ku soo gabagabeynayna waxaabihii kala dheeri oo macnaha irrigation systemkiisa kanaalada aragteen oo si kala weyn macnaha kanaalka ugu weyn ee soo qaadaya wabiga ka soo qaadaya kanaalka aan fiirino hadda biyaha duu wado marka kanaalada ka ugu weyn wabiga soo qaadaya ka weeyay kambeeta soo gelinaya kan magacyo kala leeyahay marka magacyo oo traditional ah ay yeelan karaan marka kanaalka markaan fiirino marka soo jeedka biyaha ku dhacay kanaaladan maxay wada karaan wabiga biyaha laga soo qaaday maxay ahayd ilaa biyaha daba aragta saafi maaha biyaha waxa ku milan waxyaabo kale oo carradii ciidii macna ilaa Ethiopia meelaha laga soo qaadayay laakiin dhibaatooyin kale way keeni karaan waxyaabaha keeni karaan caafimaad ahaan maxaa kamid ah balharzi wax la yaqaan ama schistosoma kaadi dhiiga waxyaalaha sababay macnaha oo macna taas waa medical maxay ahayd parasitology caafimaad ahaan iyo medical entomology marka laga hadlayo macna dhagaxaantii waxyaaba ku jira biyo saafi filtration dal u sameeyeen sidoo kale sunta beerta lagu buufinayo inay meesha ku harto laga yaabo sun la joojiya jirta dadka hore oo DDT loo yaqaan oo carcinogenesis waa macna kansar ay sababtaa qofka hadii uu saameeyo macna hooyooyinka xitaa u sii gudbin karaan ilmahooda waxyaabahaas oo dhan DDT macnaha dadka kasii baari kartaa detailska taariikhiga la joojiyay qaar 70meeyadii la joojiyay marka beerta la buufinayo beeraha qaarkood waa weyn Soomaa diyaaradaha lagu buufinayo marka waxa imaanay maxay suntii meelaha qaarkood kanaaladan ay ku dhacaysaa malaaya ku jiri karaaya malaayga si saameynay bini'aadamka malaayga haduu sii cuno food chain silsiladii cuntada macnaha ay toos u saameynaysaa marka taas waxa loo yaqaanaa marka waterkii marka pollution iyo waxaaba ay ku dhacaan hadda biyaha cayaano badan kanaaca ku dhalan karta malaria kanaacada ilaa life cycle-keeda waxa loo yaqaanaa complete metamorphosis sama waxay ku kanaacada ukumeheed markay ku dhasho waxyaabaha luluma waxyaabaha yar kanaacada larbeed waa biyo isku bedelay adult bini'aadamka hadhow cudurro badan ay gudbisaa cudurrada maxaa kamid ah waxa ugu caansan oo beeraleyda saameynaysa hadhow malaria sama plasmodium ku sabab waxa kale gudbisaa virus ay qaad ku gudbiyaa kanaacada ilaa waxa kala baxdaa Aedes Anopheles Aedes iyo Culex iyo Mansoni marka nooca Aedeska waxay gudbisaa yellow fever cudurro loo yaqaan yellow fever iyo waxyaabahaas ay gudbiyaan kuwa kale waxay gudbinayaan maxay ahayd nematoda waa aragteen maxay ahayd waxa jiro qof dadka lugaha barray ma aragteen elephantiasis loo yaqaan nematoda nooc kamid ah waa lymphatic system waxa saameynaya marka kan waa hadafkan kan leenahay waxa waaye ecology ahaan waxa soo dhan macna biotic abiotic aquatic waa marka noolayaal badan ku nool meeshaan algae xitaa laga heli karaa ayaga full chain gooni ay leeyihiin marka loo fiiriyo xalaaqo waxay leeyihiin sidoo kale beertii ay waraabinayaan hadda kanaalkii weynaa kanaal yar sii jiray marka beeraha taas u galay oo marka kan waxa loo yaqaanaa irrigation system kan waa qaabkaas irrigation system ya kala jira macnaha oo dripka ka soo hadleeyay geedaha reeraha ku yaal waxa waaye mango sama cambe hadda mirihii u dhalay cambaha caleemiis waa aragtaa hadda geed weyn uu noqday macnaha productionkiisa cudurro badan oo resistance oo u adkeysanaya macnaha hadda waa aragtaa waxyaabahan deficiency noqon karaan macnaha calaamadahaas oo ku sameysmaayo maxay ahayd veins caleenta ilaan leaf flat caleenta balaaran kan waxa loo yaqaanaa midrib samaheed network uu leeyahay nooca network maxay dicot ama monocot dicot ka lagu yaqaana macnaha shabaka u sameysmaa monocot ka galeeyay kamid ah misagadii caleemadooda dheer yihiin parallel waa macnaha veins kood wuxuu caleenta waxa kale laga heli karo maxay ahayd stomata iyo oo ayagana sameynaysa waxaas oo dhan gudaheeda anatomiga marka loo sii galo waxa waaye mesophile-kii waxaabihii gudaha ku jiray macnaha dhan marka kan waa irrigation system-ka beerta waxaan soo aragnay cambaha babayga irrigation-kooda iyo ecology ahaan macnaha xoogga saaraynay hadda cambaha gudihiis meelahan qaarkood cawska ku badan macnaha weediskii in laga saaro u baahan yahay macnaha waxa gudaha maxaa kale ku beeran saytuun kan muxuu yahay marka kan hadda wuxuu yaqaanaa wind breakers oo yaqaanaa
wind breakers waa maxay waxay xeyndaab u yihiin madarb u yihiin beerta baxra saafida lagu beeraa mararka qaarkooda waxay celinayaan macnaha dabeesha qaar waxay soo geli kartaa fungi cudurro waxa dhirta waxa ugu badan cudurrada ku dhaca fungi-ga spores ay sameeyaan marka sporeski dabeesha soo qaadaysa beer kale caafimaad qabtay soo gudbin karaan taas daraadeed xeendaabyadaas waxay ka celinayaan dabeesha hafada wadato kuleelka wadato waxay evaporation waxay transpiration waxay ziyaadin lahayd macnaha dhirtii inay transpiration oo mibax ziyaada inuu ku dhaco dhirtii ay keen lahayd taas marka waxa waaye maxay ahayd waa beerta qaabka loo sameeyo macnaha time managementiga macnaha structure-ka oo farm beerta loo dhisaayo detailskeeda macnaha sii raadin kartiin faafahinteeda koorsooyinka la agaal ay qaadan kartiin wax kale comments ama question ah participation as sameynaysiin macnaha gabdhaha wiilasha haddii ay ka qayb qaadanaysiin waxa kale macluumaad aftiraysiin كدرة هي واحد معلومات كدرة أو مصعب قبلها معلومات كدرة إيكولوجيا كده بقى يصير معناها ودرتيهم حكاز لما لا محكى الله برنامج كهد بوت كنت داد عن بود عمر برنامج ملر نكسب بود واي ماشي سمعناها كوسو gabagabeynayna زيتون كانوا عارفين زيتون كحاجة جودها وصقل له هذا ما صوبوا دي حاجة تصوري بلا حاجة كنال جيس كاس تسوي بلا ما ها بلا ونسعوني اوف تعاوني ومسعوا في النمذ محاولين ها صار اسمه معك يقول تعال يودان كامل كبقش كلها يا ماشي كلها كامل كردو منا كلها هذه أكبر أبو كاميرا بيقدرنا ولا بيد ما يا كذا صدق كاميرا مسقط رالو نقرالو واحد ضبط ملا ما كمل أنا بخطط حبيبي لا أنا كنت خلاص عدنا جبتين دول عاود انت بس كده لين خالين كاس فين اسمه كنت مية أنا وقوة هل حب الله لكن ما تنتجنا حدوق غرفتك هذا رددي عند جزيرة نحوي معطيني ما أنت برات كسمة وجروب كيلوات أو معدن سميان دراسيان مادة إيكولوجي برات كذا ومعلوم قميصة تاريخ ونكون بعدين تاعي هذا بيش أبريل هذا كنتون شنطة أنا معلق جيد لينا ديكاس وشاقني وكد الدلمة وياك طلع عني يا اسكال لي فيه كذا وكذا ما كان هذا ركتين معناه سوء نظيف سيء هاي
معناها علامتيسا هي في عن معناها نوها استا مريه سنادو بالله واحد عذري وحاجات صدق كمان مقدار نظيف واي waxay aanintay sida halkaas xogaa مانجا marka wuxuu noqon karaa species badan uu leeyahay macnaha noocyo badan variety ama noocyaha la xifdinaayna waxa ku shaqo leh baaraktii macnaha qaabka uu samaysan yahay hada دوق في عن معناها وليه هاي كوكا لحقا ومدب كيسة وكعجار سنه مركل الله في إيريا قيبها كله أدي مراهان هالهاد أدي علينا هالهاد محيا له وحنا هستا إيريا نظيفة وبينا له كومبيتيشن بدلنا مهدا معناها أو حالة صار كلي كملها عصر معناها ولا داي مركان هاي مدعو يعني عشان واحدة كان كسرنيجا أو لينتان مدعو هاي ويند بريكر سويس وحوك علينا يا محي وحابه يوصل قد لها دباشي وحابها محيهد كان إن أي نقطة إن أي نقطة محيهد سبارسكي فانجاي وحابها كله إن أي ستة وصل فكرة كنال كده يورك كنال كان كير هذا فرير واي كنال كان فرتيرة معناها وحس بسيفك وياه وطابنا يا هذا الحدث قيبها عن قيبتان بوي قادنا يان حيا الكود سيستم كده ما دام أيهين برينيال ما دام أيهين معناها حدث هذا already مايكرورايزي وحواسنا ما لقيه لا يا أيها توصل قادنا يا مركا marka ecology marka la macnaha aad u balaaray marka la fiiriyo waxay hadal lamaanay ma aha continuous noqonaya maanta marka hadda kaliya waxa laga hadli karaa food security ahaan macnaha cuntadii wadanka waxaanu nimco khayraad ay leeyihiin in ay ka faa'iideysan karaan oo management fiican ay u sameyn karaan marka cambihi hadda ayaan soo arkaynay kan xogaa aragtaa nadiifkiisa iyo waxa saaran area inay u fiican